waalid haddii aad hooyo tahay gabadhaaduna da'deeda ay tahay inta u dhaxaysa 8 ilaa 14 fadlan ha u dirin wadankii haddii adigu aadan la joogin. haddaad adigu la joogayso adiga oo hooyada ah u dir markaa, laakiin haddii aadan raacaynin ha oran gabadheeda wadankii baan u diri, waxay la joogay habaryarteed, walaasheed, eedadeed, adeerkeed iyo wax lamida. sababtan saa u leenahay maxay tahay? waxaan rabaa inaan idhaahdo xilliyadaas sidaan horey usoo sheegnay daraasaad fara badanna ay tilmaamayaan wixii ka dambeeyey 2010 2010kii gabdhaha caadadoodu way soo degdegi kartaa oo waxay ku iman kartaa iyagoo 10 sano jira. idan waa xilligii ay hormoneskeedu isbedelayeen. waxay saameynaysaa arrinka qaabkay u fikirto, waxay saameyn kartaa dulqaadkeeda, waxay saameyn kartaa dabeecadaheeda. cidda loo baahan yahay markaa inay hagto, inay tusaalayso, inay waxan barto, inay tilmaanto cid kale maahay, waa hooyada. cidda ugu faradhuudhuuban waa hooyada. gabadhu cidda keliya ay ku dulgalgalan karto, ay arrimaha qaarkood kala hadli karto waa hooyadeed. gabadhu waxay maraysaa markaa iyada ah marxalad ay u baahan tahay inay ku lamaantoy sidaa ku tahay hooyadii laga soo hoos qaaday. aabbe iyo adeer iyo abti iyo eedo kulama hagaagayso. marxaladda noocaasa hadday cidla noqoto marka oo ay joogto wadankii oo gabadh qurbe ku dhalato ku kortay, aad markaa kaga soo tagto bay-ad aanay ku korinoonay aada u garanayn, waxaa la soo gudboonaan karaa xanuunada dhimirka ku dhaca, kuwa ugu xun depressionka iyo waxa la midka ah. waad ku kala fogaan kartaan. dabeecadaheedu wuxuu saameyn karaa qaabkay u fikirto. idan waxaan rabaa inaan idhaahdo haddii adigu aad la joogayso wadanka u dar, laakiin marxaladda ay marayso inaad tiraahdo wadankay aadi, aniguna qurbahan joogay Yurub, Australia ama North America oo biilkan u diri, ma aha arrin qurux badan. wax walba ood waalid legasi ka dhagaysataan waa wax bulshadeenu ay la kulantay oo ay dhibaato ka timid oon rabno inaanay dib u soo noqon. idan kelmadeenu maanta midaasay ahayd. hooyo walba marxaladda iyada ah markay gabadheedu marayso, cidda keliya ay rabto gabadhu inay la joogto waa hooyadeed. waxaa dhacday hadda ka hor duruustii bulinka markaan ka hadlaynayna aan soo qaadanay in gabadh 10 sano jirta oo Maraykanka ku nool iyadoo iskuulkii joogta ay heshay caadadeedii ay heshay. hooyo markaa kala sii hadashay ma jirin, aqoonna umaanay lahayn. gabadhu markay isku aragtay hawshaa waxay bilowday inay oydo, inay dibnaha qaniinto, inay aada u qaracanto, waayo ma garanayso waxaani wuxuu yahay meeshu ka imanayo. waxay noqotay ardaydii inay dhagaysan weydo, macallimiintii hay soo dhawaanina ay tiraahdo, ilaa markii dambe ay tiri hooyaday waa in la igu yeedho. hooyo way shaqaynaysay, ma soo bixi karin. habaryarteed baa u timid oo ka hagaajisay oo garab istaagtay. waxay gabadhaasu tiri hadal hadduu ku hadlo qof diinta aqoon u leh, gabadha waanu cudurdaarina, waa ilmo yar, runtii diinta uu kaga bixi kari lahaa. waxay tiri God is not fair, ilaahay cadaalad ma samaynayo. iyadoo hadalka sii wadatay waxay tiri why would he do this to me and not to my brother? muxuu ilaahay aniga sidan igu samaynayaa oo walaalkay uusan igu samaynaynin? macni si kale haddaanu idhaa waxay leedahay maxaa aniga bahdilkan iigu dhacayaa? maxay sidan iigu dhacaysaa? walaalkayba waxanoo kale kumaanay dhicin. arrimahaasi waxay marka qayb ka yihiin dhibaatooyinka u khaasaa gabdhaha iyo xilligaa ay marayaan, iyo daraasaadka tilmaamaya 10 sano iyagoo jira in howlahaas ay ku dhici karaan. hooyo walba da-aaddaa markay gabdhahoodu marayaan ha la joogeen. hadday wadanka aadayaanna ha la joogeen, hadday qurbaha tahayna ha la joogeen, hana bareen. ilaahay awlaadana xifdiyo. wasali allahuma calaa sayidina maxamed.